kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono macluumaadkii ugu dambeeyay dagaalkii ka dhacay deegaano ka tirsan ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia taasoo in badan oo kamid ah bulshada Soomaaliyeed ay wax badan kala socon xaaladda taagan ayaan ugu talagalay inaan barnaamijkayga si gaar ah ugu iftiimiyo ummaduna ay wax badan ka ogaato wixii halka ka dhacay dagaalka cidda uu u dhaxeeyay iyo ciidanka deegaanka jawaabtii ay ka bixiyeen markii loo eego iskoorimaadkii halkaasi ka dhacay haddaba si aan wax badan uga ogaano waxaan isku dayi doonaa inaynu wax badan ka dhaxno arrinta ee dagaalka halka ka dhacay waxaan dul istaagi doonaa cidda iskoorimaadkaasi u dhaxeeyay waxaan sidoo kale isla eegi doonaa dhibaatadii halka ka dhacday oo dhan walba ah marka waxaan helnay xog ah inuu dagaalka u dhaxeeyo maleeshiya beereed deegaankaasi dhibaato fara badan ku hayay dhulka deegaankaasi kadibna ay ciidamadu la dagaalameen soo dhawaada page-kan ayaad kala socon doontaan barnaamijyadeeda hadduu alla idmo muuqaalka hala sheer gareeyo page-ku waa cusub yahay hala sheer gareeyo muuqaalka page-kan waa cusub yahay waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka sheer gareysaan dagaalku yuu u dhaxeeyay salaamay abdulabano haye walaal yaan kaaga jawaabo su'aasha dagaalku u dhaxeeya dagaalku walaal u dhaxeeyay dagaalkan dambe saaka qarxay iyo dagaalkan dambe saaka qarxay si wuxuu u dhaxeeyay ciidanka deegaanka gaarka Liverpool loo yaqaano haddana ciidanka booliska deegaanka iyo dad dable ah oo boorarka ka soo gudbay oo hubaysan sidoo kale dad argagixisa touristiya oo Al-Shabaab sidoo kale dad nidaam beelaysan loo soo agaasimay kuwaasi oo fara badan watay deegaanka foldo kuwada iyo qalalaas inay ka kiciyaan rabay horeyda ciidan laayay ciidan dadka bulshada u dareynayay oo amnigooda sugay u laayay marka dadka dib ku hayeen deegaanka dib ku hayeen ciidanka dib ku hayeen marka wuxuu dhaxayo haddaan soo ururiyo ciidanka deegaanka liiga loo yaqaano iyo qoliyaha dhinacyada badan ee argagixisada ee beeleedka noocaas wala lahaatay wayhay aynu qaawina marka hadalka beeshan ama maleeshiyadan hadda beel ahaan ka soo jeedaan si qeexan ayaad warbaahinteeda ugu sharaxi kartaa ummadda Soomaaliyeed inay wax badan ka ogaadaan ba la doonaya qabiilkan ciidanka dawladdu ay la dagaalameen waa qabiilkee waa qoladan ay dawladdu la dagaalameysay ciidanka dawladdu la dagaalamayeen horta waxa mideeya kaliya waa badalada qabiilka loo yaqaano reesha isaga loo yaqaano idoor loo yaqaano waqooyiga Soomaaliya daga deegaanka naqayb ka daga يا هرتا ككون قليان الصور سامر كيسان نقدان أما إذا بينهم نقدان لكن دلالة مدينة سوى حيث قبيل كساقين هاي وياهي دجالك واو دعي بالواحد مدة نجيسنا يسا أمانة دعوانا يسا waxaan doonayaa soo dhawaad horta dadka iga daawanaya Facebook page-kan Balwan Media waa halka aad kala socon karto barnaamijyada aan soo gudbiyo barnaamijkan waa live hala share gareeyo dagaalkii ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaan iftiimi doonaa ciidanka dowlad deegaanka cidda ay la dagaalameen ayaan dul istaagi doonaa waxaan dad kala wadaagi doonaa qasaarihii dhacay dagaalkaasi baaxadiisa dhaawaca intee la eg ayaa halka ka dhashay dhimasho gaadiidkii la kala qabsaday sida ciidamada deegaanka ay ugu fududaatay inay ka adkaadaan maleeshiyaadka intaba waan dul istaagi doonaa marka waxaad ii sheegtay reer Sheekh Isaaq in ay maleeshiyada ahaayeen kadibna ciidanka deegaanka uu la dagaalamay marka qasaarihii halka ka dhacay iyo guusha ciidanka dowlad deegaanka ayaan rabaa marka inaad si kooban ummadda na dhageysan doonto iyo inta hadda na dhageysanaysaba inaad la wadaagto horta walaal ma santahay khasaaruhu kulay bulshada in lagu cilmiyo wada sababta Soomaalidu waxa kama qor Soomaaliya bulshadaba khasaaruhu horta wuxuu bilowday aroor bayna jabeen laakiin wala israacinayo bay ka dhigneed ciidanka deegaankuna ciidan aad u badan wixii soo weerara dadka mas'uulka ee deegaankana ciidan ku filan weeye oo xakameyn kara cadu ku soo weerara marka waa khasaare nafeed oo aad fara badan u jira khasaare hantiyeed u jira gaadiidka laga soo qabsaday argagixisadaasi waa gaadiid meelo kala jira laakiin dhowr iyo 10 ah hubba kamid fara badan maxaabiis aad u fara badan oo 54 55 qof ah waxay ku xidhan yihiin magaalada Yucaale
salaadiin baa jirtay saaka aroortii la soo qabtay iyaga laftooda laakiin salaadiintii sida dhaqanka Soomaaliyeed yahay magaalada Shisheeye loo gudbiyey haddana xorriyadooda dib loogu celiyey laakiin maxaabiistii faldambiyeedka dagaal lagu qabtay waxay ku xidhan yihiin degmada Yucaale waayahay rag ka mid ah dadkii deegaanka oo beel ahaan ka soo jeeda beesha Isaaq waxay sheegeen in si beel ahaan ah loo beegsaday oo ay ciidamada dawladdu ama ciidanka deegaanka ay ka dhinac dagaalamayeen dad macawisleeya oo ay ku sheegeen beel ahaan beesha ogaadeen warkaas ma jira warkaasi ma jira baan aaminsanahay waana sida saxda ah sababtoo ciidanka deegaanku waa ciidan intaasoo dufcadood u qalin jabisay waa ciidan qalabeysan waa ciidan dhinaca kasta ka dhisan waa ciidan aan daytadooda la qiyaasi karinba laakiin macnaha ciidan u baahanaya maaha ciidan beeleed ciidan u baahanaya maaha kabid ciidan bilood u baahanaya maaha waa ciidan dhinac kasta isugu filan waa ciidan hal la heli karo hal gooba laga heli karo 80,000 oo askari iyo hal gooba laga heli karaa dhammaan kama hadlayo iyo hal gooba laga heli karaa marka ciidanka tirada iyo tayada leh ma isleedahay adiga ahaan iyo dadkuba ciidan beeleed bay u baahanayaan ciidan beeleed waxa uu dagaalamay ma jirto ciidanka deegaanka uu baa la dagaalamay argagixisada la dagaalamay feermin la dagaalamay argagixisada reerka dib ku haysa hadayna hadda ku hayn doonto ila dagaalamay walaal waayahay kelmadda inta badan soo noqnoqotay inta aynu dagaalka maanta arkayna waxa kamid ah in dad shacabana laga laayay ay reer Isaaq ka sheegeen gudaha Somaliland qaybo kamid ah deegaankay ka hadleen dad shacaba la xasuuqay adigu goobjoog baad ahayd deegaanka dhibaatadu ka dhacday baa ku sugan tahay ma ii xaqiijin kartaa ma jira ciidanka dawlad deegaanka dad shacaba ay laayeen walaal Cabdullaahi oo taas aad bay u dhib yartahay waana very simple baan dhihi karaa horta reerkan reeshaga saaq la dhaho muddo 30 sano iyo la fawatan la faay iyagu waliba dileen oo dadkay ku xasuuqeen burburkii Soomaaliya ay goobahooda ku xasuuqeen ama qaxayaba deegaamada kala ah lafahoodiiba wataan leeyahay anaga laga dilay waa dad beenta iyo runta ka jecel beenta meel ay ku dileen askar ku xasuuqeen askar nabadooda ilaalinaysa ku dileen faalka ka dhacay dagaalka hor laftiisa lagu jabiyay ama isleedahay dad shacab iyo caruur baa joogay caruurtu waxay ka qaxday ama ay ka guureen oo iyaga dartood waliba u ka qaxeen jabhadda iyo argagixisada soo gashay dartood cabsi ay ka qabaan ama dhib u soo haysay lagu kula jiro ama iyagoo waxyaalaha cashay uga qaxeen dartood bay waa 10 cisho ka hor meesha ka tageen hadday run sheegayaan ha soo bandhigaan ilma la dilay ama hooyo la dilay ha soo bandhigaan wax hooyo ama gabadh laguma dilin wax ilmaana meesha laguma dilin waxa meesha dagaalamay waxa nin qori wata oo la dagaalamay dawladdiisii iyo askartiisii ahna argagaxo waayahay dagaalku wuxuu aad u shaabaxaa qaabka maxaabiista loo qabtay dagaalkii Gooja Cadde oo maanta waxaan xusuustay dagaalkii SSC Qaatumo oo halkan ka salaamayo in uu aad u shaabahay oo qaabkii ciidanka SSC ay u jibiyeen ciidankii waagaas gobolka Sool dagaalka ka waday qaab noocaas ay shakadu akayd dadkuna 25ka August la soo xasuustay ma kula tahay darbaaxada maanta ku dhacday inay la mid tahay tii Gooja Cadde waxaan dhihi karaa Cabdullaahi walaal way ka daran tahay baan dhihi karaa qof wallahi goob joog ah baa dareemi karaa haddaan qiyaaso waxa maanta ku dhacay argagixisada soo urursatay wax kaloo qiyaasa ma garanayo dagaaladii anigu ma joogin daadan macnaha waqtigaana ma goob joog ma ahayn dagaaladii Soomaaliya ka dhacay ee waqtiyadii ama dagaaladii iyagu la galeen gumaysiyaashii ama dagaaladii ka dhacay ma ogin laakiin dagaal intaan noolaa ama wax garanayo ka dhacay oo noocan oo kale dad soo duulay oo xaqdaro ku socdo argagixisada oo kale lagu jabiyay ma garanayo waxaan baan ku qiyaasi karaa kuwa caalamka hadaan noqon wixii Hiroshima ka dhacay ka dhacay waan dhihi karaa maanta daawale waayahay dadka naga daawanaya page-ka Facebook waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad share gareysaan page-ka uu cusub yahay halkan ayaan live-afka iyo barnaamijyada ka soo geli doonaa haddaad nagu cusub tahay ku soo bir page-ka inoo share gareeya muuqaalka waayahay waxaan arkayay muuqaalo la ii soo diray gaadiid fara badan oo ay ka carareen oo ay ku jiraan xitaa gaadiidka raaxada maxaa kalifay in hub intaa la eg iyo gaadiid intaa la eg ay si sahlan uga cararaan waxaan dhihi karaa arrinta Cabdullaahi oo waxa kalifay
waxay filayeen iyo waxay arkeen baa kala duwan filayeen dad kibray oo dowladoodii oo leh war adna dishaanbe adna laysaanbe bal kaalay oo aynu dambiyadanaad ku jirtaan iyo dadkan dabadana ka reexaya argixisada iyo waxaan ka soo noqdaa waa markaan ka hadlay ciidan beeleedka ka garab dagaalamaya argixisada dowlad noocaas oo kale u dhibrinaysay oo u arkaysay dadkoodii oo khaldamay iyo moodayeen iyaguna inay ka wadbateen ama muquniyeen bay moodayeen marka waxun baa kalifay baan dhihi karaa waxay filayeen bayna arag marka wax kasta way ka carareen waayahay maxaabiis odayaala ayaan arkayay oo ka mid ahaa dadkii dagaalamayay odayaal da'doodu ay intaa la eg tahay inay dagaalamaan maxay kula tahay والله وعقل حماده يدور ما نيك راه عين ككورين وليغود ير نينك ستيتن شركه اي نينك لبا شركه اي مسيهين ان يجون اسلاميين ددك كلنا اي ديغود xalaashanayaan leeyihiin anagu bal dilay ayo wax sameynaya marka odayaasha wax ma dhihi karaa waxayba islahayn baan jeclahay waxa khaatumadiinaba ku jirtayna dhiiga ciidanka iyo shacabka deegaanka kula deganay kala adabtaan laakiin iyaga walaal ku dambeeyo وزاو سيئات مثلها وإلهي مركا يجي بوال دلمي كسو عداده ولا قبطه وهذا محابيسه إن لدلي إن لدعوان القريب حبر وعشو قبيليسن أي هذا وضعان تاسو معناه دو يهي إن فيردن لغسو دولي مقعنا وحي كبدغين دولة ديغانك وقادين دقالك كجرة أو دقالامية haddii sida ay rabaan aanu hadalka u dhigno ama qaabka ay hadalka u dhigayaan awoodan markastaba ay ku yiraahdaan qabiil baa nala dagaalamay waxaan xusuustaa dagaalkii Gooja Cadde ciidankii dhalinyarada SSC oo dagaalka kula jiray ayay dhihi jireen Kismaayo laga soo duulay daarood baa noo wada dhameystirmay dagaalku waa mid daarood u dhaxeeya iyo isaaq iyo kelmada lamida maantana magacii ogaadeen bay ka dhigeen dhulkii deegaanka Soomaalida marka tooda hadii loo yeelo awood ay ku maqoonin karaan ma jiraan ismalihi way jirtaa bunka ay yeerinayaan qabiilaysanna waxaan dhihi karaa ay argixisada ku taageerayaan meel kasta ay soo yeeranayaan ay leeyihiin qabiil baana soo wararay ama dirow ama idil samaalo ay ku leeyihiin bunkaas mid u shaqeynaya ma aha baan isleeyahay reeraha laftooda kuwa yeelaya ma aha baan isleeyahay hadday yeelaanna ismalihi waxbay awoodi karaan ama ay ku jabin karaan dad kale oo lamida waayahay ma qabtaa dagaalkii dhacay mid ay ku saxnayd dowlad deegaanka oo in ay dagaalamaan sidanna ay u galaan mid ay ku saxnayd adigu ma qabtaa 100% baan qabaa walaal boqolkiiba boqol baan qabaa qofku waxaan aaminsanayaa hadduu dulmi wado dulmigana ku indhacad yahay leeyahayna aniga saxan oon kuu sii wadi dulmiga walaal waxaan qabaa inaad iska celiso qofkan iska celinina dawaabadayuus baa la yiri marka dawladdu dad kibray oo argagixiso iyo ciidan beeleed iyo dad xuduudaha ka soo gudbay oo dawladda ka tirsanayn isu soo urursaday inay gacan xoog leh iyo dhabax xoog leh ku dhufatay walaal waxaan u arkaa arrin aad xilligeedii u timiday saxna beesha carab oo halkaa degan miyaa la barakiciyey mise maleeshiya soo duushay ayay dowlad deegaanku la dagaalameen ma walaal beesha arab anu ismalihi way barakacday hadday barakacday waxaa barakiciyey maleeshiyaadka ku soo duulay ee dhowrka geesoodeenu ka hadalay ee dowladdu mayna barakicinin waxayna dowladdu hadda ka qabatay baabi'istayna gacan xoog lehna ku qabatay maleeshiyaadkii iyaga barakiciyey hadday beelahaasi barakiceen haddana waxaan isleeyahay waxay si amniya u iman doonaan ciidankoodana way garab istaagi doonaan baan isleeyahay beelaha arab haddayna iyaga laftooda argixisaba noqon waayahay baabuurtii aad soo bandhigteen waxaa ku jira gaari ama gawaaridu waxay wataan taargooyinka Somaliland taasoo micnaheedu yahay gawaari laga leeyahay Hargeysa iyo Burco maxay kula tahay gaari Somaliland taargadiisa wata inuu dagaal u aado dowlad deegaanka waxaan u arkaa caqli xumada iyo tayo xumada iyo nidaamkay wax ku rabaan baan u arkaa inaad adigoo gaari plate numberkii dalkan wataa aad dal kale u gudubto ood baror ka gudubto ood haddana qalalaasa ka samayso waxaan u arkaa foolxumo iyo caqli xumo meel ka talisay laakiin hadda waxaan isleeyahay unde waa caddayn unbay reebeen baan isleeyahay
ugu dambayn maxaad ugu baaqaysaa maleeshiyaadkii duulaanka deegaanka oo ugu dambayn laga gacan sarreeyey oo hadda abaabul wada kuwa beenta sheegaya eele dad shacaba ayay laayeen dowlad deegaanka ciidankan iyaga oo idil warxmatashiilka dadkana dhegaysanaya iyo dadkana dhegaysan doonaba maxaad ugu baaqaysaa horta dhowr baan u kala qaadi maleeshiyada iyada u baaqi maayo nin dhintay u baaqi maayo maleeshiyada cagta la mariyey wax maleeshiya oo noolina ma jirto oo hadda la samayn garan maayo takala la sameeyana ka guulaysan maayaan ciidankan deegaanka shacabkana waxaan ugu baaqayaa shacabow runta u kaalaya xaqiiqada u yimaada waxa meesha isku dagaalayay waa ciidankii dowladda ciidankii cadowbaba ka tirsanayd ciidanka beesha arab ka tirsanayd rasha isaa ka tirsanayd ogaadan ka tirsanayd soomaaliya oo dhan ka tirsanayd iyo argagixisa is dagaalaysay haddana alxamdulilah boqolkiiba 75 mishinku uu hirgalay waxa dhimanina waa wax xal ah marka wuxuun baan leeyahay reeraha Soomaaliyeed ee kala un la mid noqda ciidankiina iyo dowladda ka tirsantiina taageera inta ma dheeraa aad u mahadsan yahay mid ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee goobjoogka ahaa dagaalkii dowlad deegaanka Soomaalida ayaan telefoonka ku wareysanayay sababta keentay ayaan rabaa markaa inaan ummadayda u sharaxo horta ku soo dhawaada page-kan waxa la yiraahdaa Balwan Media waa page aad kala socon doonto xagga Facebook barnaamijyadayda halkan ayaan diiradda ku saari doonaa macluumaadiyadii iyo barnaamijyadii aad iga barateen insha Allah aan u soo laabto dagaalkii dhacay walaalayaalow dagaalkii dowlad deegaanka Soomaalida ka dhacay micno kala duwan oo intooda badan aan xaqiiqo ahayn ayaa lagu sarrifay ama lagu fasiray taasoo dadka lagu maran habaabinayo aniga wariye ahaan ma arag dad shacaba ciidankii deegaanka ay xasuuqeen anigu ma arag ilaahay baa runta igu jecel dowlad deegaanka Soomaalida ciidan dad shacaba xasuuqay ma arkin qof walboo haya xogtaasna inuu nala wadaago aadan u jeclaa lahaa in been la sheega ma ah ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ee Mustafa Cagjar madaxweynaha dowlad deegaankaas iyo maamulkiisu dad shacaba ma xasuuqeen haddaad hayso soo bandhig lama rabo af in laga been abuuro maamulkana ceeb bay ku tahay dadka aad u hadlaysana ceeb bay ku tahay ilaa iyo saaka ilaa iyo xilligan waqtiga aan live-ka ku jiro waxa ay dadku la cararayaan hal kelmad oo ah dad shacaba la laayay ma arag aniga meel muuqaal ama lagu soo bandhigay dadka marka eheladooda la laayay ha soo bandhigaan haddii kale yaan la xagxaganin maamulkaas sheekada marka qosol kale dagaalku intuu socday aan la kulmay oo aan rabo inaan idinkaga sheekeeyo waxa weeye 25kii August horta soo xasuustay dagaalkii Gooja Cadde dagaalkaasi Gooja Cadde taariikhda ahaa ee dhulka SSC qaatuma ka dhacay iyo dagaalkii dowlad deegaanka Soomaalida ka dhacay sidoo isku shaabaha maxaabiista markii loo eego qaabka muuqaalka maxaabiista markii loo eego sida sahlan ee ay gaadiidka uga carareen markii loo eego laba kelmadood aan markaa ku xasuustay oo aan rabaa inaan barnaamijkeygana kugu soo gudbiyo walaalayaalow Soomaali isku mid maaha dadkana qabiilo kala duwan bay ka soo jeedaan laba beelood weliga iska ilaalay hal la dagaalamay haddaad la dagaalantana waxaad u diyaar garowdaa dhibaato dhaawaca iyo dhibka ka soo gaarana qof bili aadana hadhowti saameyn kuma yeelanayo waa absame iyo dhulbaxante labadaa lama dagaalo dhulbaxante iyo absame oo aad la dagaasho waxaad ka dhaxlaysaa ficiladii dhacay oo kale ha laga digtoonaado waxaan rabaa marka inay dadku nuxurka dhabtaa ogaadaan dagaalka iyo sida loo fasiray farqiba u dhaxeeya ciidanka dowlad deegaanka cid ay beegsadeenna ma jiro qabiil ay ugaarsanayaan ma laha yaan arinta qabiil laga dhigin ogaadeen si kale markaan hadalka u dhigo ogaadeen dad leela dirsi karo waa lala noolaan karaa waa dad deegaana waa dad yaqaana dirisnimo wanaagga ilma adeerayaalow aan si edeb ula noolaano ceeb ma aha haddii aan edeb lagu noolaa karin oo aan si sharaf leh loola noolaa karinna yaan laga been abuurin ka sheegashada beenta ee ku aadan dagaalkii dhacay waxaan ku soo xasuustay dagaalkii Gooja Cadde sababtoo ah dhulbaxanta la dagaalamayay iidoor waxay dhahayeen daarood oo dhan aan la dagaalayay war walaalayaalow ilaahay ka baqa war walaalayaalow meeshan dagaalkan ogaadeen kuma jiro mareexaan kuma jiro ma jarteen markii dambe yimideen dhulbaxanta dagaalamay waa la diiday marka isla nuuci waaye laakiin waxaan leenahay waxa meesha ka dhacay iyo sida loo sheegayo farqiba u dhaxeeya cidii haysana ha keento masraxa laakiin anigu waxaan qabaa ciidan deegaan in aynan dad shacab xasuuqay taas waa xaqiiqad dhaba ilaa iyo saakana waa raadinay ilaa iyo saaka ilaa iyo xilligan
waxaan raadinayay hooyo dhimatay ama wiil yaroo dhintay waa soo waayay marka adigu inteed ku aragtay ma haysaa xog dadka la wadaag laakiin ciidan duulaana oo weerar soo qaaday oo ay golaha deegaanku ay ka jawaabeen ciidankii deegaanka yaan laga dhigin dagaal markaasi qabiil yaan laga dhigin oo runta la isku sheego marka waxaan qabaa ciidanka deegaanka iyo dagaalka ay galeen nidaamka lagu galay iyo qaabka u dhacay qaab sida loo fasiraya ah maaha marka yaan laga dhigin hadda waxaan arkayay muuqaal la soo duubay isbitaal boqolaal qof oo dhimatay ayaan haynaa 70 jir 100 jir 90 jir hal qof kamida layma tusin hal qof layma tusin haddaad runta sheegaysaan ciidanka aad leedihiin dad shacabay xasuuqeen ma tusa noo soo bandhiga aan aragno ceeb maaha insha allah wixii kusoo kordha dagaalkaasina waxaan kugu soo gudbi doonaa barnaamijyada soo socda hadduu alla idmo aad baan idiin salaamayaa mar kale kusoo dhawaada bejkan balwan media waa bej aad kala socon doonto barnaamijyadeeda waa cusub yahay bejka waxaan idinka codsanayaa inaad kusoo biirtaan waan idinkaga mahadcelinayaa bejka inta qof ee hadda follow saartay waa maasantihiin insha allah halkan ayaan liveka usoo raray halkan ayaan kasoo geli doonaa insha allah halkan ayaad igala socon doontaan insha allah halkan ayaan karbaashkaygii iyo howlahaygii halkaanaan ka bilaabay marka qof walbow halkan aan kusoo biiro mid waad igu jeclaan kartaan waad igu nici kartaan adigaa xora aniga ilaahay baan ka baqaa runta lama gambado haddaad igu nacayso runta inaan la gambadana hayga sugin haddaad igu jeclaanayso inaan runta la gambadana runtii lama gambad doono waana xaqiiqo dhaba wixii meesha ka dhacay ayaan dhab ahaan ayaan idinkugu soo bandhigaya insha allah wararkii ugu dambeeyay xagga siyaasadda soomaaliya inta aanan ka bixin barnaamijka waxaan idinla wadaagayaa wararkii ugu dambeeyay jubbaland waxaan idinla wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee hadduu alla ku idmaayo arrintii siyaasadda Ethiopia ceebta dhacday intaba si kooban muuqaalka noo sheergareeya marka hore arrimaha Ethiopia u soo galay laakiin hadda waxaan idinla wadaagi doonaa wixii soo kordhay daqiiqadii ugu dambeeyay barnaamijkan waa live odagu waa idin hor fadhiyaa waayahay arrinta Ethiopia maxaa ku qasbay dowladda xasan sheekh maxamuud inay Ethiopia heshiis la gasho axmed madoobe dartiis axmed madoobe ayaan jabinaynaa axmed madoobe ayaan ka adkaanaynaa ayaa horta Ethiopia loola heshiiyey Ethiopia maanta waxa loola heshiiyey waxay tahay axmeday noo soo qabanaysaa baddeenna allah u naxariisto inkastoo la ii sheegay badda ay dhiibeen bad uu xasan sheekh iyo dowladdiisa ay tegi karta ma aha badda casal la ii sheegay saylac ilaa iyo boosaaso ma garanayo xasan sheekh iyo wasiir fiqi badda cas meelay ka tegi karaan saylacna ma xukumaan hadduu alla ku idmaayo boosaasana ma xukumaan nasiib darrada soomaaliyeenna haysato tanaa qayb ka ah waa aad baan uga xumahay laakiin xaraash qaran waxay isku beddeshay baddeenni in la xaraasho weli fursadan haysanaa ummadda soomaaliyeedna way ka dhidhi karaan laakiin waxaan idin xaqiijinayaa arrinta badda iyo hawsheeduba in 100% maanta haadaan laga tuuray dalkuna khatar ku jira kalsoonida madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ku xasuustaa xilligii uu talada dalka gadagayay nin aamina oo wax walba iyagoo safe ah loo yimid laakiin nasiib darro madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrimihii gudahana gacan kuma hayo arrimihii dibaddana waa ku fashilmay maanta ummadii Soomaaliyeed zero wax gacan lagu hayo haba yaraatee ma jiro axmed madoobna waa laga adkaan waayey hadduu alla ku idmaayo xiriirkii arrimaha dibaddana fashil iyo ceeb baa taagan arrintu maanta waxay maraysaa meeshii ugu hooseysay maraysaa dalkan khatar ku jira arrintan siyaasadda qara iska tuurka khatar weyn ayay ku jirtaa hala digtoonaado dalkan meesha uu ku socdo meel wanaagsan ma ah nacaybka qabiilka fiiri axmed maxamed islaam axmed madoobe maxaa lagu haystaa wuxuu yiri siciidani iyo madaxweyne cabdiqaadir firdhiye shirka ha ka soo qayb galaan sideed u sheegi kartaa leeyahay raggaas annaga cadowga koowaadaan leenahay waa harti ma jirteen iyo dhulbahanta ma arki karno maxaa intaasoo dhiba loo marayaa qabyaalad axmed maxamed islaam qabiilaa lagu haystaa wax aan ummad ka qarinaya ma jirto aniga cabdulaahi balwaana waxaan ku qanacsanahay taageersanahay qadiyadda maamulka jubbaland warka ma qariyo laakiin qabyaaladda iyo heerka maanta loogu duulayo madaxweynaha jubbaland wuxuu ka bilowdaa qabiil wuxuuna ku dhammaadaa qabiil
waxaan arkayaa dad badan oo markay doodaan indhaha laga geliyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladnimo wadaa iyo qof iyo codow ah madaxweyne xasan ma qof iyo cod wada madaxweyne xasan sheekh miyaa raba inuu dalka gaarsiiyo qof iyo cod bal aqal xumada ummadda la hor imaanaya arag xasan sheekh maxamuud hadduu dalkan qof iyo cod la rabo maanta iskuma diri lahayn mareexaan iyo ogaadeen madaxweyne xasan sheekh hadduu rabo inuu bulsho soomaaliyeed qof iyo cod u gaarsiiyo fartaag uma diri lahayn garbahaarey mana dhihi lahayn mareexaan kaci si ay ogaadeen ula dagaalaan iswaafaji dalkan qof iyo codaa gaarsiinaya iyo fartaagoo mareexaan ku dir ogaadeen ku dir ma iskeenaysaa fartaag maxaa loogu diray garbahaarey mareexaan in laga dhaadhiciyo nacaybka madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe marka qof iyo cod iyo nuucan wax iskeenaya maaha ujeedku marka wax kale ma aha waxa weeye dowladnimadii in laga tuuro qar aysan ka soo noqon karin maxaa nala gudboon runta inaan isku sheegno waxa nala gudboon waa inaan runta isku sheegnaa waxaan bogaadinayaa walaalaha sharafta leh ee reer gado waa mahadsantihiin aniga fariintiina waa isoo gaartay sida aad ula dhaqanteen fartaag aad iyo aad baan idinkugu hambalyanayaa fartaag dharka laga siibay si sharaf leh ayay dadka reer gado madaxweynahooda axmed madoobe u garab istaageen inta kale soo hartay ee cayayaanka ahna annagaa buufinayna annagu maxaan halkan u joognaa halkan u joognaa wixii cayayaana annagaa buufinayna dalkan qatarta uu ku jiro iyo haryada la rabo in laga tuuro badqabkiisu wuxuu ku xiran yahay qof kastoo soomaaliya muwaadina waxaan kordhin doonaa marka barnaamijyada lifeka halkan ayaan kasoo gudbi doonaa beejkan ayaan usoo guuray beejkanan lifeka kasoo geli doonaa marxaladaha ugu dambeeya xaaladda jubbaland intaan kaaga soo gudbi doonaa waa beejkan cabdulaahi balwaan beejkan uu ka hadlayo waa beejka balwaan media waay halkanaan usoo rari doonaa xogaha ugu dambeeya xaaladaha taaganaan idinla wadaagi doonaa haddase marxaladda dalku uu marayo bal arag soomaaliya mucaaradnimo maaha runta in laysku sheego anigu inaan runta sheego mucaaradnimo maaha runtaan isku sheegaynaa bal arag maqaamkii iyo sharaftii maanta soomaali ay lahayd bal ilaahan idinku dhaariye beejka waa cusub yaa sheergareeya nacalaa shaydaan ku yaalay beejkan hala sheergareeyo waa cusub yaa beejkan waa cusub yaa lifekii ugu horreeyo waaye falowga waa siiseen laakiin sheergareeya barnaamijka hala sheergareeyo muuqaalkan hala sheergareeyo u hiiliya beejkan u hiiliya waa kala kici doonaa insha allah waxaan idinka rabaa marka inaad beejkan u hilisaan oo aad kor u qaadaan saraha loo qaado beejkan ha loo hiiliyo ha la sheergareeyo walaalayaalow maanta etoobiya maxaynu kula dhaqanay arag axmed maxamed islaam ciil aan u qabno ayaan maanta baddaynu u dhiibaynaa ra-iisul wasaaraha etoobiya baddii uu 100 sano raadinaya waxaan u dhiibaynaa sidee axmed madoobe nooga adkaa karaa arag sumcaddarrada dowladnimada ku dhacday arag maxaa dhacay waxaan kula heshiinay ra-iisul wasaaraha etoobiya ankara turkiga wejiga labaad wuxuu ka dhacay addis ababa etoobiya aaway maqaamkii iyo sharaftii soomaalinimo aaway xitaa haddaan bixinayno baddeenna maxaa naloo sharfi waaye muqdisho maxaa loo imaan waaye maxaa naloo sharfi waaye haddii xitaa aan badda bixinayno maxaa naloo sharfi waaye madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare abiy axmed wuxuu ugu yimid muqdisho maqaamka iyo weliba qadiyadda soomaalinimo markii qofku qabka dowladnimo uu soo celinayo waa noocaas laakiin xasan sheekh abiy axmed ankara ugu tegay turkiga wejigii labaad ee wadahadalka addis ababa ka dhacay cid annagana rabta haba yaraatee malaha dowladnimadii halkaasaa laga dhigay ma laga guulaysan doonaa axmed madoobe ma laga adkaan doonaa axmed madoobe ma laga yaabaa inay taliska xasan sheekh axmed madoobe ka adkaadaan aniga iga qora madaxweyne axmed maxamed islaam isagaa guulaysan doona iga qor aniga waxaan ku dhaho wax loo noqonaya maaha axmed maxamed islaam isagaa ka adkaan doona weliba xasan sheekho sidaan ka tabar yar ayuu axmed ka adkaan doonaa xaaladuna waxay ku soo biyashuba doontaa in axmed la horsado waxaan dhan waa been iyo barbagaanto axmedaa xanuunsan axmed madoobe tabcaan waaye daryeel caafimaadoo dalka dibaddiisa u aadi lahaa cunaqabateyna la saaray wax ka jira male habaar keliya ka soo haray axmed waa joogayaa wuuna joogi doonaa waa madaxweynaha sharciga ee jubbaland anaa hadda kuu sheegaya ma ka adkaa karaa waqtigaa ka dhacaya xasan sheekh 1 sano iyo 5 bilood waa u dhiman waxaan idin tusayaa axmed maxamed islaam oo madaxweyne ah iyo xasan sheekh oo gobolkiisu dhacay taa micnaheedu maaha aniga inaan qabiil ku difaacayo axmed madoobe maaha waa runta dhabta ah waay waxaa looga adkaaday dagaalkii raas kamboni
ciidankii qaranka iyagoo qaxootiga Kenya isku dhiibeen waxaa looga adkaaday Kulbiyo dagaal ka dhacay waxaa looga adkaaday dagaalkii Doolow bal arag saddex dagaal ayaa lagu kufsaday ciidankii qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ciidankii qaranka saddex jeer ayaa looga adkaaday bal arag Soomaalinimada iyo sharafta Axmed Madowna arag askari qaran maxbuus ka dhigan maayo Axmed Maxamed Salaam wuxuu yiri askari qaran maxbuus in noqon maayo sumcadda arag marka askari qaran inuu kismaayo maxbuus ku noqdo Axmed Madow waa diiday reer xasan sheekh waxaan leeyahay ama habaarama ama been sheega Axmed Maxamed Salaam annaga la safan annaga taageersan annaga Jubbaland la dhacsan annaga ayaana ummadda u sheegayna runta fadlan beejkan ku soo biir halkan halganka Jubbaland ayaa laga qaban doonaa halkan halganka dib u noolaynta dowladnimada halkan laga qaban doonaa fadlan ku soo biir beejkan kam mid noqda beejkan hala kala kiciyo kor ha loo qaado ummadda Soomaaliyeed ee ugu xiran beejkan kor ha loo qaado insha Allah wixii ku soo kordha marxaladaha kala duwan ee dalkana waxaan idin kula wadaagi doonaa barnaamijyada soo socda hadduu Allah idmo xaaladda gobolka Gedo ninkii ahaa fartaag waa laga adkaaday walaalaha mareexaan runtu waa ogaadeen xasan sheekh ma isxaan u falay mareexaan buundooyinkii gobolka Gedo ee dhibaatada ka taagan xasan sheekh oo sameeyay way xaasinimadii xasan sheekh waxay gaartay heer ciidankii qaranka Gedo laga soo kaxay waa xaasinimo iyo lucfi maanta loo qabo dadka deegaanka sidee bay reer Gedo u ogolaanayaan inay fartaag ku raacaan dagaalka Axmed Maxamed Salaam aqligu inuu shaqeeyo muhiima waa ku faraxsanahay Gedana in looga adkaaday waa ku faraxsanahay in Jubbooyinka looga adkaaday aniga runtaada igu imaanaysa wax alla iyo wixii jira halkaan ku qalqali doona insha Allah layfafkayga halkaan aad kala socon doontaan beejkan hala kala kiciyo muuqaalka la share gareeyo halkaan kor ha loo qaado insha Allah aniga dadkayga ayaan mar walbaba garabkayga taagan dadkayga tiin shacabkayga tiin beejkan kor ha loo qaado layfafka soo socda macluumaad badan ayaan ku jeexjeexi doonaa waxaan idinka rabaa inaad beejkan kor u qaadaan insha Allah hala share gareeyo muuqaalkan meel fog hala gaarsiiyo beejkan ha noqdo mid ummadda Soomaaliyeed ay nuxurka dhabta ah ay ku ogaadaan kuliyo gobonimo warka ugu dambeeya ummadda Soomaaliyeedna ay ku farxi karto wax kala ma aha runta ayaa adkaan doonta Jubbaland way guuleysanaysaa waana looga adkaan doonaa taliska xasan sheekh meel walba wixii ku soo kordha marxaladda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo marxaladaha ugu dambeeya ee ka jira geyga Soomaaliya dhinac kasta ay noqotoba barnaamijyada kale ayaan idinku soo gudbi doonaa odayaal dhaqameedyo tagay magaalada Laascaanood ee u tagay arrinta dadka deegaanka dhaqankii SSC baa soo dhaweeyay odayaashaasna insha Allah warbixino gooniyan ka diyaarin doonaa aad baan idin salaamaya guriga gobonimo hala share gareeyo muuqaalka nabadgelyo